الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أصحابتنا نبوحرن بيتك نتيجة وقاش أكاديمي. waxaan maanta in soo gudbin doonaa haddii uu eebaraali ka noqdo faa'iidooyinka caafimaad ee laga helo timirta, maadaama aynu ku guda jirno bishii barakeysneed ee Ramadaan. ay muslimiinta badankoodu ay ku afuraan ayna ku saxuurtaan timirta, taasi uuna faadhiyey rasuulkeena naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee sallallahu calayhi wasallam. geedka barakeysan ee timirta waa geed ka baxa dhulka kulaylaha ah, gaar ahaan dhulka aanay ku samaysnayn badi dalagyada kale ee la quuto. timirtu waxa ay leedahay faa'iidooyin badan. waxay caawisaa qaybo badan oo ka mid ah jirka aadanaha. haddaba faa'iidooyinka caafimaad ee laga helo timirta waxaa ka mid ah: 1. timirtu waxa ay dhintaa heerka kolestaroolka ee dhiigga, waxayna ka ilaalisaa xididdada dhiigga qaada qalafsanaanta, sababtoo ah waxaa ku jira timirta maado loo yaqaano pectin. 2. waxay ka hortagtaa kansarka xiidmaha, waxayna ka ilaalisaa xanuunka baabasiirta, waxayna yareysaa dhagxanta ku dhasha kaadi haysta. waxay sidoo kale fududeysaa marxaladaha uurka iyo dhalmada iyo dhiigga ka dambeeya, waxaana ku jira fibers aad u wanaagsan iyo sonkor dhaqso u riiqma. 3. timirtu waxay ka joojisaa in ilkaha uu suus galo, sababtoo ah waxaa ku jira maado fluoride la yiraahdo. 4. timirtu waxay ka ilaalisaa jidhka sumaha, waayo waxaa ku jira maadooyinka sodium, potassium iyo vitamin C. 5. timirtu waxay daaweysaa dhiig la'aanta, sababtoo ah waxaa ku jira maadooyinka iron, copper iyo vitamin B. 6. waxay daaweysaa jiljileeca lafaha, oo waxaa ku jira maadooyinka calcium, phosphorus iyo vitamin A. 7. waxay daaweysaa appetite la'aanta, sababtuna waa maadada potassiumka ee ku jirta timirta. 8. waxa ay daaweysaa timirta itaal darada guud ahaan iyo wadne xanuunka, oo waxaa ku jira maadada magnesium iyo copper. 9. waxaa ku jira timirta maadada selenium oo ka hortagta kansarka. sidaas darteed baan dadka ku nool meelaha beeraha timirta u aqoon kansarka. 10. waxaa ku jira maadada daaweysa itaal darada xagga galmada. intaasi ayaan kusoo koobaynaa faa'iidooyinka caafimaad ee laga helo timirta. tan iyo kulanti dambe waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabadiino. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.